wiil dhalinyaro ah ayaa yimid oo yidhi, hooyo, halkan eeg. Hooyadii ayaa soo jeesatay. Wiilkii ayaa yidhi, hooyo, aan ku baro qofkan. Waa saaxiibtay Meng Meng, tanina waa hooyaday. Hooyadii, oo ku labisan dharka nadaafadda waddooyinka, ayaa gacmaheeda marada isaga tirtirtay si ay u salaanto gabadha, waxayna tidhi, haye Meng Meng. Laakiin gabadhii salaan uguma jawaabin. Hooyadii ayaa weydiisay, qado ma cunistay weli? Eedadu waxay kugu casumaysaa cunto. Gabadhii ayaa wiilkii ku jeesatay oo si kulul u tiri, anigu saaxiibta ma ihi, ha isku kay qaldin. Wiilkii ayaa weydiiyey, maxaad uga jeedaa? Gabadhii waxay tidhi, oo weli ma waxaad i weydiinaysaa macnaha hadalkayga? Miyaadan ii sheegin in hooyada ay tahay guddoomiyaha shirkadda? Sidee bay hadda waddo xaaqa u tahay? Haddaan ogaan lahaa maan imidba. Kani waa been cad. Intaas markay tiri ayay iska tagtay, wiilkii ayaa gadaal uga dhawaaqay, laakiin way dhegaysan weyday. Kadib wiilkii ayaa hooyadii ku yidhi, hooyo, maxaad samaynaysaa? Adigoo si cad u ah guddoomiyaha guddiga shirkadda, maxaad isaga dhigaysaa nadiifiye waddo? Runtii ku fahmi lahay. Hooyadii ayaa dhoola caddaysay oo tiri, wiilkaygiyow, haddaanad fahmin, dib baad u ogaan doontaa ujeeddada hooyada. Wiilkii wuxuu yidhi, haye, waayahay, waan mashquulsanahay hadda, wuuna iska tegey. 2 bilood kadib, wiilkii ayaa soo laabtay wuxuuna yidhi, hooyo, kani waa saaxiibtayda cusub, Ting Ting. Ting Ting, tanina waa hooyaday. Mar kale hooyadii ayaa gacmaheeda tirtiratay oo tiri, haye, iyadoo faraxsan, gabadhan labaad, Ting Ting, iyaduna salaan kama qaadin, balse waxay weydiisay wiilkii, tani ma hooyada baa? Wiilkii ayaa yidhi, Ting Ting, aan kuu sharaxo. Hooyaday waa shaqaale nadaafadeed, waxayna bishii qaadataa qiyaastii 3,000 oo yuwaan.